ila dib soo celi gabadha ma hayraade garanay halka casan su'aal baan ku weydiinaya kooranaysa musabix hadu doorashadan guul daraysto taariikhdiisa maxaa lagu xabsan doonaa mar iyo laba naga sheeg waxa lagu xasuusanayaa taariikhda madow ee mugdiga ah ee bila iftiinka ah ee bila xurriyada ah ee bila dhaqdhaqaaqa ah naya musabix dadka weydiin war ma ku sheegaa nabada ilaahay dadka iyo waxaanu weydiinanaa dalka baaqiga yar ee hadhay aanu gacanta ku hayno in ilaahay horta ka kaxeeyo isaga caasa wajallaahi ilaahayna waxaanu weydiinanaa oo kale in ilaahay dib aad naga tagbala ku bedeshay ilaahay waxaanu weydiinanaa ilaahay dib ugu soo celiyo dadka iyo dalka baaqiga hadhay ilaahay horta saasaynu weydiinanaa taariikhda ugu weyn inta la sii xasuusto la oran doono waxaas muusiga tahay maxaa ka taaban kartaa taariikh badan oo madow baa lagu xasuusan doonaaye anagu ceebihiisa baarbaari maynee baal dahab oo cad oo lagu xasuusto kama tagaya kamana dhiman doono baal madow ka tagaya ha mugdi walillaahi alxamd falillaahi alxamd ilaahay naga ka kaxee arkale ducayni ilaahay naga soo dhawaada wadhowaada roog salaamaya calaykum salaam Abdullaahi baa Abdullaahi Saacib ha ismacada ku soo waniya barnaamijyo session ku weydiinayna waxa kooranaysa hadii muuse guul darso doorasho soo socota maxaa taariikh lagu xasuusto ka tagaya muddo laba ka taabo wallahi taariikhda ugu weyn waxa taariikhda ugu weyn u galaysa waa 25 August taas waa talabaad ee kale u galaysa waxa weeye nacaybka bulshada dhexdeeda yaala ee aan umadu si la isugu soo hagaajiyo waa la garanaynin imika anu labada fikradood baan aaminsanahay inay taariikhda waxa u galaya ay tahay wax kale u galaya ma jiraan wax kale looma hayaano hayna ma jirto haddaan nahay shacabka reer Burco waliba bariga Burco haddaan nahay wax kale aanu hayna ma jirto waa ku salaamaya adeer buur dhaafta علي بالي والله علي waxaan ku soo barnaamijyo su'aal baan ku weydiinaya kooranaysa doorasho soo socota haduu musabix guul daraysto wuxuu taariikhda kaga tagayaa lagu xasuusan doonaa muddo laba naga taabo bismillaahir rahmaanir rahiim muuse wuxuu kaga tagayaa ciidan qaran oo dhisay shaqo qaran oo dhisay dalka oo wax ka qabtay hadii ilaahay ka dhigay wuxuu kaga tagayaa samcad wanaagsan buu kaga tagayaa waxa weeyaan Soomaaliya uu kaga cabaadiyo kaga qaylisiyay Xasan Sheekh oo saa wareegay afarta koonaba dhiikar kaga dhuftay taariikhaas uu kaga tagayaa taariikhaas uu ka tagayaa aad ma santaa soo dhawaad Abdinaasir Baale Abdinaasir barnaamijyo ku soo dhawaanay waxaan ku weydiinaya su'aal kooranaysa musabix haduu guul darso doorasho saa ku tago waxa lagu xasuusan doonaa taariikhdiisa taariikhdiisa waa taariikh wanaagsan buu ayuu ka tagay laakiin da wuxuu suukan diray inaga dhulbaantii isku ka diray de marka waa intaas uu ku yara xumaadeen marka waxa lagu xasuusan doonaa dagaalka dhulbaanta dagaalka dhulbaanta iyo saaqa daarood lagu xasuusan doonaa wale Abdikir Ahmed Abdikir waxa ku soo waniya barnaamijyo su'aal baan ku weydiinaya kooranaysa haduu musabix doorashadan guul daraysto saa uu dhaco waxa lagu xasuusan doonaa taariikhdiisa horta marka hore alxamdulillah ilaahay waa mahadle horta musabix waxa lagu xasuusanayaa waxyaabo fara badan waayo waxyaabaha uu ku guul daraysto waxa kamid ah in ciidanka dhex fadhiistay oo meesha ku jabiyay waxa kamid ah kale waxyaabaha musabix uu keenay dhulka oo sidiisii hore ahayn oo bisaarad fara badan soo fal saartay marka dhacdooyinka lagu xasuusanayaa aad bay fara badan yihiin musabix wali waliga ducaysan Haruna waanu sheegay wali ka ducaysan inuu mar dambe soo bixin dawaacaynka Xamsa Abdul Qaadir baa leeyahay xamsa waxaan ku soo waniya barnaamijyo su'aal baan ku weydiinaya kooranaysa musabix haduu doorashadan saa ku guul daraysto saa inuu nabadgeliyo maxaa taariikhdiisa lagu xasuusan doonaa bal mar iyo laba koob ugu weyn taariikhdiisa waxa lagu xasuusan doonaa oo madaxweyne qaran oo madaxweyne Soomaaliland wuxuu qabtay inuu uu qabtay wixii dhaafayna way dhaafeen kawdhadi laakiin saanagu waxaanu leenahay isbedel khayr qabaan la weydiinaysanayna kawdhadi taariikha nooga tagay waa madaxweyne dalka soo maray oo madaxweyne wax qabtay waxna ka tagay wax kale laga doonaya aanu garan maayade Shirban riyada way cadaysan barnaamijyo ku soo dhaweynaya su'aal baan ku weydiinaya kooranaysa musabix haduu doorashadan tartanka ku dhaco oo saa ku guul daraysto tago bal maxaa lagu xasuusan doonaa taariikhdiisa waxa lagu xasuusan doonaa gooch cadde diya Soomaaliland dab kuriyasteed boqolo mayl soo baxday deeyo og timide kawradi marka hadii Soomaaliland isu dhiib bay haydo de Soomaaliland ninkii loo oran jiray inacigal de og buu kaga tagay kaga dhintay ilaa naxariistay de ragii dambana way gaxeeyeen oo xagga sunbay si jeediyeen marka ama de qori ha ku kasbadaan dadka ama de cod ha ku kasbadaan oo de
say doonaan baxa reer laascanood hawla heshiiyeen rag way sii socdeen laakiin isagu soo noqda marka anigu soo noqodkan ku xasuusanaya wandhowa magacaygu waa seeyaan salbaan saciid weeyaan salbaan saciid su'aal baan ku weydiinaya Faransa haddii uu musabixi doorashada tartanka ku dhaco oo sida nugu macal salaameeyo bal taariikhda lagu xasuusan doono mar iyo laba naga taabo taariikhda lagu xasuusan karo wallahi taariikhda lagu xasuusan karo waa madaxweynaheeniyo taariikh badan baa lagu xasuusan karaa oo muhiimada oo korqaad oo dee dalka iyo dadka u geystay marka dee wax lagu dhaliila baan ugu moogibe taariikh waxaan buu ka tegay haayo dee muuse taariikhdiisu waxa lagu xasuusan doonaa muuse hadduu guuldaraysto say nugu macal salaameeyo muuse waxa lagu xasuusanaya dee waddankii oo kala xidhay dee waxaan ku yidhi iminka waxaa la dooranayaa waddani baa la dooranayaa iminka cirra iminka soo baxay iminka habartaa soo baxaysa islaanta cirra baad u soo baxaba oo muuse bixisaa ku guuldaraysto tagayba bal taariikhda ugu daran ee lagu xasuusan doono baalka u galaysa dahabka mar iyo laba naga taabo horta handaraabka iyo dagaalkii halkaa askartii degood halkaa dee maxay laasacano magaalada dhan ee lala wareegay dee la haystay gacanta lagu haysto ee Soomaaliland ay lahayd habliina la kufsaday inamadiina halka lagu laayay askarti qoriga laga wada qaatay rag badan xidhan yihiin xitaa raggii uu soo dayn waayay halka waxa weeye ay ku xidhan yihiin marka dalka go'ay maxaabiista maqan baa lagu xawsanaya maxaabiista maqan iyo dadka waxa weeye qarankiiba lala wareegay gacanta lagu dhigay gacanta ayaa lagu xasuusanay gacanta lagu dhigay marka waxa weeyaan Ismaaciil barnaamijka ku salawinaya session ku dinay Faransa hadduu Muuse bixi doorashada tartanka guuldareysto u dhaco oo sida nugu macal salaameeyo taariikhda maxay u gali doonaa lagu xasuusan doonaa mar iyo laba taariikhda waxa u galaysa Muuse bixi hadduu maanta saa ku dhaco waxa u galaysaa dee Muuse يا وسيري مصيدة كوفش المسياسة السومالية كوفش فايدة أيوة جلسة تاريخ مدولة دي نبى تاريخ وكذا داير يا تاريخ وناقسم بكذا سيلاني تاريخ وناقسم بكذا نبى سياسة دي سين بكسي هنا قاعدة لكن كان السياسة دي سواء نقطة قرن كيس السومالية كلابر كذي التاريخ دي تسوي جلسة ما مرة تاريخ مدولة كذا يا وحنا لنا باي باي لنا أيوة magacaawna Saciid maxamed Jawala Saciid ku soo barnaamijka su'aal baan ku weydiinay Faransa haddii madaxweyne Muuse bixi doorashada guuldareysto soo nugu macal salaameeyo bal taariikhda mar iyo laba wuxuu ka tagay inoo taabo walaal wuxuu ka tagay waa madaxweynihii ugu horeeyay hogaamiyihii ugu horeeyay Soomaaliya ku fashilmay uu ka tagay taariikhda Soomaaliland gobolka Sool waxa gacanta Soomaaliya soo geliyay madaxweyne Daahir Yaale waxaana gacanta Soomaaliya ka saaray madaxweyne Muuse bixi waa madaxweynihii ugu horeeyay ee waxa weeyaan xidhay xildhibaanada xidhay ee hablaha xidhay ee islaamaha xidhay ee odayada xidhay ee waxa weeyaan maayirada xidhay ee wasiirada xidhay marka waxa weeyaan madaxweynihii fashilka iyo waxa weeye xadhig ayuu noqon doonaa ayaa lagu xasuusan doonaa waxaana u maleynayaa 13 November doorashada dhacaysa waxay noqon doontaa doorashadii waxa weeyaan 2010kii dhacday ee waxa weeyaan ay ku tartameen Daahir Yaale Kaahin iyo Axmed Maxamuud Siilaanyo marka doorashada waxay ahayd kacdoon shacab baa ku dhacay Daahir Yaale waxa weeyaan xilka laga tuuro Muuse bixina maanta waxa ku dhici doona kacdoon shacab oo shacabku xilka ka tuuri doona marka waxaan leeyahay madaxweyne Muuse bixi dalka leeyahay Pakistan ayaa waxa ka talin jirtay haweeney la oran jiray Sheekh Xasiina haweeneydaasi waxay caan ku ahayd waxay aad u xidhi jirtay qof kasta oo xukunkeeda ka aragti duwan ayay xidhi jirtay xabsiga u taxaab jirtay marka aakhirkii dadkii markay u adkaysay way xadhigeedii jacburinteedii kacdoon shacab baa ku kacay Sheekh Xasiina madaxtooyada ugu daateen madaxweyne Muuse waxaa leeyahay intaa waxa weeye shacabku madaxtooyada kugu daadan doorashada qaba sida Sheekh Xasiina oo aad waxa weeye ka walacaan kaga carray madaxtooyada doorashada si wacan u qabo waxa weeyaan waa laga helayaa hanay oo guuldareysto waxa taariikhda lagu xasuusan doonaa dawaal macaanay horta waa dhawahay waxa lagu xasuusanayaa madaxweynaha horta madaxweynuhu waa lajan waa nin adag intii horta aynu aqliga lahayn madaxweyne aad u fiican ayuu ahaa madaxweynahan madaxweynaha Soomaaliya de inaga caabiyay buu ahaa maxaan ku meel kastaba kaga qaylisiyay marka madaxweynahan waa madaxweyne aad u wanaagsan taageerihiisana waana
waxaan sodhan karaa waxaa lagu xasuusanayaa horta ictiraafkii oo weynama soo dhowba waxyaabo fara badan baaldahaba ayuu madaxweyne ku tegaya hadduu soo noqdana sharaf la soo noqonayo cabdi annaga iyana diiriya case ee doonayna su'aalo la yaab laadna wada weydiiso kaalayaa diiriyo haye waan weydiinaya saashaan ku weydiinaya waxay ku oranaysaa madaxweyne Muuse Bixi doorashada soo socotay guuldaraysto oo saynu maca salaamiin bal taariikhda maxay u galay marii laba naga taaba xawsa lagu xasuusan doono horta madaxweyne Muuse Bixi adigu inuu dhacayo bay ku soo sheegay inuu dhacayo anigu ma qabo Muuse Bixi dalka 7 sano soo socota isaga haysanaya ashana waxaan leeyahay shanta dambe 7 markuu Muuse dhamaysto bila hadal bal lagu dhiibaya hadii cimri kugu soo inta san leeyahay dhicmaayo madaxweynuhu lacag ka soo qaad badu dhac maxaa lagu xabsanaya wallaahi Muuse Bixi horta intii uu meesha haystayba horta gondaha la haystay ninka Muuse Bixi la yiraahdo madaxweynaha qaranka aad iyo aad baan u hambalyeynaya isagiyo magaranaysa dawladdiisaba waxaan leeyahay shanta sano soo socotana isaga haysanaya tadambe hadii ilaahay ka dhigo anigu waxaan jeclayba inta uu Muuse Bixi mawado ka kaxeeyo sida Cumar Gelle mise inta kaleba Muuse Bixi inuu meesha haysto oo uu joogo oo waayo dahuwanta wixii ah uun bakan hadda Muuse Bixi nin kaftamaya maaha qaranka dhiig dhuuxaba uu shuba Soomaad garan ninka iminka hawaawigu wada isaga sheegay halkuu Muuse Bixi bal isagu muxuu balan soo hordhiga Soomaha dadka anigu cirroole doorasho hadii la dooro waayo waan dagaalamaya mooyeen cirroole waxa saan umada u qabanaya balan caadiya soo dhigaya niyo anigu runtii ma hayo Muuse Bixi horena waanu dooranay iminka rayahan anigu saan qabana waxaan isleeyahay isaga ciidan hadii cimri kugu sugo ciidan hayna ugu ridid aad iyo aad baa mahadsantahay